mar walba oo bashir runtii ay soo wacaan lamaane markaa laga yaabo dhib inuu dhex yaallo shayga u horeeyan weydiiye waxa weeye waxaan idhaa intaydan masaajid ka iman ehelka u celiya arrinkan ehelkaad ka dhalateen u celiya laanna qur-aanku markuu tilmaamayo ma aragtay waxa weeyaan xakaman min ahli markuu ilaahay leeyahay akhyaar ehelkeeda ah iyo akhyaar iyo waxgarad wiilka ehelkiisa ah in hawshan loo dhiibo oy labadooda u qor dhiibtaan waxaad muddaa doorkaa uu ka baxay meesha markaasaa mararka qaarkood bashiir waana runtii sababta anu aan aaminsanahay waxyaabaha qaarkood inaan ku dhiirano inaan sheegno waxaa arrintii lagu soo wareejinayaa masaajidkii rag jooga masaajidka beytka ilahi kama hadlayno ragga jooga raggaas nin walba waxaa saameeya qaabka u soo koray bashiiro ninbaa wuxuu ku soo koray nolol harsh ah oo aabihii hooyadii abuse garaynayay culturekaas waad la imanaysaa backgroundkaas masaajidkaad la imanaysaa sheekhna waa sheekh laga yaabo hooyadii aabihii inay wada jeeganoo si quban loo soo koriyey waxaan isleeyahay marka xukunka ay bixinayaan mararka qaarkood kala duwanaanaya indhahanagan ku aragnay wadaado gabadha uga helinaya wiilka marka tusaalan bashiir rabaa inaan bixiyo texas waxaa isdishay gabadh muslimado bangaladesh ayaa isdishay markaan raacay keyskeeda waxayd gabadhani inay muddo ka soo dacwoonaysay odayga ninkeedii laakiin kelmadana sabar reerkaaga dhaqo ilaahay ma banayn gabadhan dulmi ku sabar inaad tiraa xuquuq bay leedahay waa in wiilka lala hadli karo markii aragtay wana naga dhaqandooyin dadka desi communityga ba waxay noqotay gabadhii inay isdisho waxaan ka wadaa bashiiro waxaa laga yaabaa ehelku inay uga aqoon badan yihiin mashaa'ikhda ehelku marka iyaga ha la shaqeeyaan mashaa'ikhda labadii ehelka ahaa ee lamaanaha labadoodii dhinac bashir ka socday iyagu ha yimaadaan masaajidda xogta culimmada ha u keenaan culimmaduna markaa shareecada iyo sharciga alla dejiyey in marka ay u eegaan laakiin hadda waxaa dhacaysa iyagoon ehelka ogeyn bayna soo aadayaan marka anigu waan weydiiyaa ehelkiinu ma ehelka ogyahay ma og yahay ma u celiseen arrinta kale garab taale waxa weeyaan paperwork ha ku ordina shuruucda waddankan ha ku ordina oo ha ka tallaabsanina ehelkii iyo culimmadina ha ka tallaabsanina marka waxaan isleeyahay bashir 3 shay baa meesha taalla doorkii ehelka doorkii masaajidda laakiin labadana waa inay isla shaqaynayaan iyo iyagoo marka hore la rabo horta waxaan inay iyagu xalliyaan ayagu xalliyaan